السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وان سلامي كسو دوادا channelka Ibrahim Said waxaan doonayaa maanta inaan tusiyo qaabka loo sameeyo website ama qaabka loo abuuro blogger oo free qaab aad u free weeye oo ku sahlaya inaad website samaysatid ugu horreyn waxaad soo furanaysaa Google-kaaga halka ugu sareysa ayaa waxaad ku qoraysaa blogger waa kaas kadib waxaad kala tagaysaa create anq and beautiful blog waa easy waana free mid hore ayaa igu furan ka hore waan xirayaa waxa lagu sameeyaa markiisa hore waa bloggerka waxa lagu sameeyaa Gmail account laguma sameeyo email kale marka haddii aad u baahan tahay inaad mid kale samaysatid waxaad tagaysaa halka create account ayaad oranaysaa kadibna account-ka aad rabtid inaad samaysid ayaad gelaysaa halkaasaad ku qoraysaa test mail oo kale u bixinaynaa blogger kana u bixi passwordkiisana waxaad tiraahdaa kama ogola blogger 2010 badha oo la qaatay zero si raaci waxaad oranaysaa password ayaad u samaynaysaa sanag 123 oo kale dheh password ayaad u samaysanaysaa waxaan samaynaynaa gmail-kii imika goorta dhalashada aad ku qoraysaa genderka halkan baad sii tagaysaa waxaad ku qoraysaa lambarka aad u baahan tahay inaad ku samaysatid lambarka ayaad gelinaysaa email-kaaga horena halkan baad gelinaysaa ayaad iska lahayd hore u lahaan jirtay location-kaagana ayaad halkaa gelinaysaa si aad sax u wada noqotid kadibna gmail-kiisaas ku samaysmay halkaas ma soo soconaysaa agree ayaad oranaysaa gmail-kaaga already processing ayuu ku jiraa waa la verify garaynayaa kadibna halkaas ayaad ka helaysaa lambarkaas ayaa lagugu dirayaa verify code-ka continue ayaad oranaysaa text message halkaas ayaa laga gelinayaa waan isku soo noqonaynaa intaan gelinayo code-ka halkaas ayaad gelinaysaa enter verification code oo galaa ku arka waan geliyay imika lambarkii aad gelisay ee halkaas saas oranaysaa processing weeye in yar baad sugaysaa inta uu ka process garanayo okay uu sameeyay imika gmail-kii continue ayaad oranaysaa xagga waa ka kaaga muuqda inuu sameeyay blogger 20130@gmail.com inaan ka sameynay waad aragtaa kadibna hore ayuu ka gelayaa imika si aynu u samaysano blogger marka kan hore aan iska saaro mid hore ayaa igu jiray test mail-kaas ayaa ka sameynay waa kaas ayaa tagaysaa haddii aad ka samaysay haddii kale mid kale samaysana magaciisa ayuun baad baaraysaa si aad u heshid batay email-kaagii caadiga ahaa sidan ayaa kusoo baxaysa waa bloggerkii waa halkii aynu joognay uun waa ka xagga u sareysa ood ku aragtaan url-ka create your blog ayaad oranaysaa bloggerkaaga samee waad yara sugaysaa intuu kasoo kacayo ugu soo baxay aad ku dhufatay email-kaagii passwordka ayuu kaaga baahan yahay inaad gelisid inaad passwordka halkaa hore u gelisaa next ayaad oranaysaa oo taabanaysaa loading please wait ayaa halka sare ku aragtaa confirm your blog okay halkan laba qaybood ayaa kusoo baxaya laba option ayaad haysataa keebaad doonaysaa inaad noqotid blogger profile mise create Google Plus profile labadaas baad doonaysaa create unlimited blogger profile ku dhufo kadibna taas halkaas ayaa taabanaysaa waxaad ku qoraysaa bloggerka magaciisa oo kale waxaad ka dhigaysaa imika sanag media oo kale ayaad ka dhigaysaa continue to blogger ayaad oranaysaa
uu soo kacayaa inta yar uu soo kacayo waad sugaysaa qaabkan ayuu ku soo baxayaa kadib waxaad iska oranaysaa maybe later ama sure taas jecesha ayaad iska oranaysaa laakiin anu kansalayaan leh waxaan digniin ayaa halkan ku taala ee dhawaan soo saareen haddaad u baahan tahay akhriso marka kuu soo baxo create new blog ayaad halka ku aragtaa halkaas ayaad ku dhufanaysaa kadibna titleka ama magacaad u bixinaysid ayaad halka ku qoraysaa Sanaag Media oo kale ayaan ku qoray kadib addresska lagu soo galayo ayaad isna ku qoraysaa waad soo koobiyanaysaa halkaas ayaad ku soo baas garanaysaa Sanaag Media .blogspot.com bakaas kadibna waxaad dooranaysaa template-ka ama qaabka uu ekaan lahaa bloggerkaaga ayaad halkan kasoo dooranaysaa content bakaasaan u deysanayaa inuu ii ahaado this blog is not available ayuu kugu yidhi ma shaqeynayo maxaa dhacay waa la isticmaalay hore ayaa loo isticmaalay marka waa inaad bedeshid weeye Sanaag kaliya u daa kaana ma ogola ood sii wadaysaa Sanaag berbera oo kala raacay kaasaadhe this blog is available kaasuu shaqeynayaa kadib waxaad tegaysaa bloggerka kaad siduu u ekaan lahaa ama nooca uu bloggerkaagu noqon lahaa ama website-kaagu taas ku dhufo creating a blog halkaas cabaar baad yar sugaysaa successfully waa la sameeyey imika bloggerkaagu uu samaysan yahay qaabka noocan ayuuna ku soo baxayaa xagga u sareysa digniino iyo waxba ku saarayaa waynaad akhridid marka ugu horeysa blogger sida loo sameeyaa waa qaabka waa easy waa free wax kastana waad ku samayn karaysaa insha Allah habeenada dambe ayaan halka kasii qaadi doonaa ama casharada dambe ayaan ku sii xijin doonaa wixii ay sii noqdaan sida loo post gareeyo sida loo qurxiyo sida looga shaqeeyo bloggerka sida wax loo soo geliyo halkaas ayaan kasii wada doonaa ku tahno casharada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.